munaasabadani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay laguna soo bandhigayay dhaqanka iyo afka hooyo muhiimadda uu leeyahay bulshaweynta Soomaaliyeed ayaa waxa ay ahayd mid ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda magaalada Uruburu iyo waliba macallimiinta wax ka dhigta dugsiyada magaalada iyadoona soo bandhigida munaasabadani ay qayb ka ahaayeen ardada wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweyne magaalada iyo sidoo kale xubno ka socday maamulka dawladda dalkani ee degmada Uruburu ayaa waxa xubnihii ka hadlay kamid ahaa abwaano macallimiin iyo sidoo kale aqoon-yahano. xogayaha guud ee jaaliyadda magaalada Uruburu Cabdifitaax Baana Cayuum oo xubnihii goobta ka hadlay kamid ahaa ayaa u sharaxay ujeedada munaasabadani guud ahaan dadweyne ka soo qayb galay. qofka markii la weydiyo ID kaarkiisu la soo baxayaa tahay marka af Soomaaliga runtii aad iyo aad bay u xanuun badan tahay marka qofka la yiraahdo maxaa tahay yaa tahay uu sheegi waayo afkiisi marka af Soomaaliga ma aha wax shalay ama toddobaatmeeyadii la qoray horay ayuu u jiray asagoo Laatiin lagu qoray waxaan kor wahay wuxuu ahaa waa buug naxwaha afka Soomaaliga ee la yiraahdo Practical Grammar of the Somali Language waxa la qoray 1897 marka buugan xitaa waa out of print hadda dib loo daabaca aana la iibsadaa sidoo kale dhaqanka Soomaaliyeed iyo afka Soomaaliyeed maanta jaamacadaha lagu dhigaa wuxuu soo gaaray inuu caalamkii ka soo batay maanta Sweden uu noogu yimid jaamacadaha Sweden lagu dhigaa afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed buugan wuxuu ka mid yahay buugagta jaamacadda Sweden ee Göteborg laga dhigo maadada la yiraahdo dhaqanka iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo looga jeedo ardayda iyo halkaan wax marinayno wuxuu gabaygu oranayaa Soomaali ururto adagoo aqoon loo urur qura ku wada jira arrimaha dantoodiyo adeega iyo hawlaha ubadkiyo caruuraha idilkood haweenkiyo odayaasha dhowro isu wada walaala ah ugu kaalay xagee Uruburu مسجد آدو وينو يريدات كجلسية إلا ما إمامكي وميه كبوحان وقالي أوروبرو فرحدي يا روسيدا مركا يستاران إلا ما أرورتي ومدانو كلاهرين وقالي أوروبرو أصل يحقوا يو إله بين الدلية هدي أصل شيغانا إن حباش آديو إن أرداغا تشوكتو أديك تقوري قبا ummad wada ordaysoon inaan quri maqnaanayn ugu kaalay Uruburu in iftiinku nuur yahay aqoontuna muhiim tahay ilaa waa naqaana asraari mayne arday aan wax bari jiray marka ay iskuulkiyo universiteedkaba isku maalin loo xidho ehelkuna dul joogan indhihii jaleeca sida ay u eegaan aragga la yaab kale ugu kaalay Uruburu ninka helay birtooday habeeye agaasimay cidda lagama helnay hooyoy ada dhalay hareeraha Japan iyo maraakiibta Hong Kong ka hinqada agtooda badda hirin ka jeexay dabaylaha hirdeeyo mawjadi halaynay iyagoo hab shaaximan hanqarkii butaacada tuuraha hirbaaca hakiinin mawjadi isagoo hab shaaximan Ingiriiska haybsada ninka helay birtooday habeeye agaasimay cidda lagama helnay hooyoy ada dhalay diyaaraadkan hawlee hawada la laaye halkay doonto dunidaba ka dhaxayn habeen qura ninka helay birtooday habeeye agaasimay cidda lagama helin hooyoy ada dhalay aqoon ay ku tiirsan tahay nolosha asalkeeda aqoon bay ku tiirsan tahay adduunyada adarka haysanaadihiinkay ku taagan tahay adduunyada adarka haysanaadihiinkay ku taagan tahay mujtamacan dhex joogna aqoontu ku faanaya mujtamacan dhex joogna aqoontu ku faanaya ee ummadda Soomaaliyeed aawaytay lahayd ee ummadda Soomaaliyeed aawaytay lahayd haddana wadankeena horumarkiisa raadina in waalidiin qaar ay ba arintaasi ku farxsan yihiin oo hadiiba ay hadlayeen ku dhaayeen ilmahayga ma yaqaan luqadda Soomaaliga waxay ku gabyayaan luqadda wadanka ay joogan ajiib way dhibaatooyinka ka dhalan kara afka Soomaaliga oo dhuma
waxaa muuqata khatar weyn oo ka imaan karta afka Soomaaliga oo dhuma haba yaraatee meesha ka baxo xiriir aad iyo aad u muhiim ah waxaa laga yaabaa dad oo wada dhashay ama is dhalay maanta kala joogaan wadamada qaar Soomaaliya kale dunida meel walba way joogtaa haddana loo kala tarjumayo kan wuxuu dhahay kan wuxuu dhahay loo kala tarjumayo haddaba su'aasha taala waxay tahay Soomaali ayaga isku luqad loo kala tarjumayo ama laba isla dhalto loo kala tarjumayo ama hooyo aab oo waxay dhan loo kala tarjumayo haddaba dadkaas maxay isku yihiin su'aashaas waxay u taala dadweynaha Allahu barakaatu anigoo la dhaho Faadimo Cumar ku nool magaalada Örebro ka qayb galay xafladii wanaagsaneed maamuuska lahayd dhaqanka Soomaaliyeed ay soo bandhigeen macallimiinta iyo ardayda Soomaaliyeed Örebro ayna ka soo qayb galeen wariyayaashayada Somali Channel iyo qaran iyo saaxiibadoodba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ilmaha Soomaaliyeed oo intii ka soo qayb gashay iyo intii maqashayba iyo waalidiinta ka soo waa wax aad loogu baahan yahay qofka hadduusan lahayn hidda iyo dhaqan ma laha wax aqoonsiya Allahumma hadla maanta bararam haddii afkeeni hooyo bararam iriidu furneene ilayska baxaya afkeeni hooya bararam ilayska baxaya afkeeni hooya Allahumma hadla maanta ram haddii afkeeni hooyo baram adduunyada ku faafaye ilayska baxaya afkeeni hooya iyadoo sida laga warqabo guud ahaan Soomaalida meel walba caalamka ay ka joogto ay yihiin kuwa si gooni ah u maamuusa hidaha iyo dhaqanka ay goonida u leeyihiin ayaa maanta waxa Soomaalida Örebro ay nasiib u yeesheen inay soo bandhigaan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya iyadoona ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo markaasi u wada riyaaqay guud ahaan waxyaabihii lagu soo bandhigay kulankani lagu maamuusay hidaha iyo dhaqanka Bashir Salaad TV-ga caalamiga Somali Channel